Assalaamu calaykum. Sababaha hooyooyinka ilmaha loogu qalo. Waxaa jiro dhowr sababood oo keeni kara in hooyada ilmaha lagu qalo. Haddii aad doonaysid inaad ogaato sababahaasi, ka bogasho wacan. Iyadoo waalidiin badan oo uur leh ay u malaynayaan dhalasho caadi ah oo ay ka dhalayaan meesha caadiga ah. Mararka qaarkood duruufuhu waxay u baahan yihiin hab ka duwan taa. Qaliinka cesarean section oo loo yaqaano C-section waa hab raacyo qaliin oo loo isticmaalo dhallaanka marka dhalashada caadiga ah ay khatar u keeni karto hooyada, ilmaha ama labadaba. Aan u dhaadhacno sababaha kala duwan ee qaliinka cesarean ama C-sectionka laga yaabo in ay ku taliyaan xirfadlayaasha caafimaad. Inta aan topican ku jirno ama mawduucan aan ka hadlayno, waxaan aad u isticmaali doonaa qaliinka C-section. C-section macnaha qaliinka markaan leenaana waa qaliinka lagu sameeyo maamada marka carruurta lagu qalaayo ayaa loo yaqaanaa C-section. Sababta koowaad ee keeni karto in hooyada lagu qalo dhallaanka waxay tahay dhibaatada uurjiifka oo loo yaqaano fetal distress. Inta lagu jiro foosha, la socodka garaaca wadnaha ilmaha waa muhiim. Dhibaatada uurjiifka oo lagu ogaado qaababka garaaca wadnaha ee aan caadiga ahayn ayaa laga yaabaa in ay muujiso in ilmuhu aanu si fiican ugu dulqaadanaynin foosha. Xaaladahan oo kale, qaliinka C-section waxay noqon kartaa lagama maarmaan si loo dedejiyo dhalmada loogana hortago dhibaatooyin kale oo imaan kara. Sababta labaad ee keeni karto qaliinka waxay tahay bridge presentation. Sida ugu fiican, dhallaanka ayaa madaxa hoos alle u mariyaa ilmo-galeenka si ay u fududaato dhalmada caadiga ah. Si kastaba ha ahaatee, dhallaanka qaarkood ayaa marka hore soo bandhiga ama soo hormara lugaha iyo barida. Taas ayaa loo yaqaanaa bridge position ama bridge presentation. Caadiyan waxay ahayd in uu madaxa soo hormarsado, balse waxaa soo hormaraya gacmihiisa ama barida ayuu soo hormarsanaya, taasoo kordhinayso khatarta dhibaatooyinka dhalmada. Iyada oo jiraan farsamooyin kale oo la isku dayi karo in ilmaha loo jeediyo sidiisii saxda ahayd haddii lagu guuldareysto ama haddii ay jiraan dhibaatooyin kale, qaliinka C-section ayaa noqon kara doorashada ugu badbaadsan ama ugu fiican. Sababta saddexaad ee keeni karta in carruurta lagu qalo hooyada waxay tahay placenta previa, mandheerta oo lagama maarmaan u ah siinta nafaqooyinka iyo oksijiinka ilmaha. Waxay caadi ahaan ku dheggan tahay gidaarka ilmo-galeenka, taasoo ka fog afka hore ee ilmo-galeenta. Placenta previa waxay dhacdaa ama mandheerta waxay qayb ama gebi ahaanba waxay dabooshaa afka hore ee ilmo-galeenka, taasoo keeni karta dhiigbax daran xilliga foosha. Xaaladan oo kale, qaliinka C-section ayaa sida caadiga ah lagula taliyaa si looga fogaado dhiigbax imaan karo oo la hubiyo badbaadada hooyada iyo ilmaha labadaba. Sababta afraad ee keeni karta qaliinka waxay tahay uurka badan. Uurka hadday ku qaado mataano ama saddex ama wixii intaa ka badan oo mataano ah, waxay kordhisaa kakanaanta dhalmada oo ay adkaysaa in ay caadi u dhasho. Waxyaabaha ay ka mid yihiin qaababka ilmaha, caafimaadkooda iyo caafimaadka hooyada ayaa muujin kara in qaliinka C-section ay tahay habka ugu badbaadada badan ee dhalmada. Sababta xigta ee keeni karta qaliinka waxay tahay xaaladaha caafimaadka hooyada. Xaaladaha caafimaadka hooyada qaarkood sida dhiig-karka oo loo yaqaano preeclampsia iyo sonkorowga, cudurrada wadnaha ama caabuqyada sida HIV ama herpes waxay kordhin karaan halista dhibaatooyinka xilliga foosha. Xaaladahan oo kale, daryeelka caafimaadku waxay kula taliyaan qaliinka C-section si loo yareeyo khatarada hooyada iyo ilmaha ama labadaba. Sababta xigta ee keeni karto qaliinka waxay tahay qaliinkii hore ee C-section. Haweenka lagu sameeyey qaliin C-section waxay dooran karaan qaliin C-section dhalmada xigta, iyadoo ay suurtagal tahay xaaladaha qaarkood in VBAC oo loo soo gaabiyey vaginal birth after cesarean section ama C-section waa macquul in ay ka dhasho meesha caadiga alla ugu talagalay. Xaaladaha qaarkood waxay xambaarsan tahay halis yar oo keeni karta dilaac ku dhaca ilmo-galeenka meeshii hore ee qaliinka looga sameeyey inta ay foosha ku jirto, taasoo ku kalifi karta haweenka qaarkood iyo dhakhaatiirta in ay doortaan qaliinka C-section ee ku celiska ah sababaha ammaan dartood. Sababta xigta ee keeni karta qaliinka waxay tahay dhibaatooyinka foosha. Foosha oo raagta horumar la'aanta ama arrimaha qaabka miskaha ama xajmiga miskaha ayaa carqaladeyn kara horumarka dhalmada caadiga ah. Xaaladahan oo kale, qaliinka C-section ayaa laga yaabaa in ay lagama maarmaan noqoto si looga fogaado dhibaatooyinka ku imaan karo hooyada iyo dhallaanka labadaba. Sababta xigta waxay noqon kartaa xaaladaha degdega ah.
mararka qaarkood dhibaatooyin aan la filayn ayaa soo ifbixi karo xilliga foosha oo u baahan faragelin degdeg ah si loo hubiyo wanaagga hooyada iyo dhallaanka. Tusaale waxaa ka mid ah xudunta oo soo dhacdo, taa oo loo yaqaano umbilical cord prolapse, iyo dildilaaca ilmagaleenka ama dhiigbax daran. Sababta kale ee keeni karta qalliinka waxay tahay doorashada qalliinka. Xaaladaha qaarkood haweenku waxay dooran karaan in la qorsheeyo qalliinka C-section sababo shakhsi ahaaneed ama caafimaad dartood. Go'aankani waa in la sameeyaa iyadoo lala tashanayo dhakhaatiirta, iyadoo la miisaamayo khataraha iyo faa'iidooyinka ku salaysan duruufaha shakhsi ahaaneed. Gabagabadii, waxaa muhiim ah in la ogaado qalliinka C-section ay mararka qaarkood lagama maarmaan u yihiin caafimaadka iyo badbaadada hooyada iyo dhallaanka, waxayna yihiin habraacyo qalliin oo waaweyn oo leh khataro iyo faa'iidooyin. Bixiyayaasha daryeelka caafimaad waxay ku dadaalaan in ay isku dheelitiraan faa'iidooyinka qalliinka cesarean sectionka iyo khataraha. Had iyo jeer waxay mudnaanta siiyaan wanaagga hooyada iyo ilmaha labadaba. Xiriirka hufan iyo go'aan qaadashada xog ogaalka u ah ee u dhaxaysa waalidiinta uurka leh iyo kooxdooda daryeelka caafimaadka ah ayaa muhiim u ah la socodka xilliga dhalmada iyo hubinta natiijada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah. Halkaas ayuu inoo egyahay. Waxaa inoo balana ciwaanka xiga hadduu Alle idmo. Khayr badan.